وهاجاك تحناها كوساسن حاجة إن فريدم كا وحويان حاجة إن حرية جارهان بل دمركو إن مركا مال قبين نقدان إن وح أترتو مالكو حاجة حرية إن أي وحترتو كلا أي وح نصيب وناج أن هلاي إن هبون دقة جامع حسن oo ah gabadh caana oo dhulka Soomaalida oo kulle maal gaar ahaan Djibouti iyo Dubai Imaaraadka Carabta laakiin halkan Hargeysa tiroon ka furaya habboon bal marka ugu horeysa maalin wanaagsan ii waran waxaad iga warantaa bal masalan meelaha uu kaaga furayin meheradu iyo wax meheradu yihiin meheradaygu waxay ka furan yihiin isku taga Imaaraadka magaalada madaxda Dubai iyo magaalada Djibouti laba dukaan baan ku leeyahay oo khaas ahaan dharka dumarka iyo wixii xargadooda haday kareem tahay cadaro kabooyin Djibouti adu wixii dumar u baahnaayo dhanban Djibouti geynaa Dubayna waxaan ku khasuusnaa dharka iyo cadarada iyo kreemyaal marka imise dukaan baad ku leedahay marka la eego Djibouti iyo Imaaraadka Carabta laban ku leeyahay mid Dubai iyo mid Djibouti kii saddexaadna magaalada madaxdan Soomaaliland ee Hargeysa isla ka fur wigagan soo socda hadii Ilaahay raaho carwadii inaad ka soo qayb gashay halkan dhawaan lagu qabtay Hargeysa waa taydii saddexaad labadii horena waan ka soo qayb galay Maasoor tii Cali Guuleed ku sameeyay Guuleed restaurant oo ka soo qayb galay bal ii waran marka maal qabeen baad tahay Soomaa maya dumarka shaqaysatun baan ahay goorma tahay lacagtan waad aragto meel walba laga xaysiiyo TV-yada Soomaalida iyo jaraa'idka iyo website-yada iyo gidi habboon deeqa ee meel walba oo diriciyada iyo gidi iyo waxaan dumarku isku qurxiyaan taasna lacagta warbana xagga si qabatay imka iyo unsiga iyo warun adigu waxaan ka shaqaysan jiray magaalada madaxda Djibouti waxaan ahaa marna safarda Mareykanka ka shaqaynayay kolkii koreysana Camp Lemonnier lacagahaygan halka ka soo shaqaystay baan investment ku gashay Dubai 9 sano 8 sano ka hor qof baan shuraaka ku noqonay tiina way socon weyday marka in 3 sano iyo bad imika ah ayaan ugu dib uga furtay dukaankayga Dubai ka Djibouti wuu jiray 10 sano imika marka xagee baad ka keentay alaabtaad keento xagee laga keenaa meel walba adduunka Hindi aan ugu badan laakiin Talyaaniga waanu ka keenaa Germany waa laga keenaa Faransiiska waanu ka keenaa China waa laga keenaa meelan laga keenin ma jiro marka waa dharka dumarka iyo waxa dumarku isku qurxiyaan iyo kreemada iyo gidi iyo shalmadaha iyo toobabka iyo gidi iyo diriciyada iyo googoradaha iyo waxaas weeyay keeshaleedii waxa la yiraahdo waxay dumarku u baahan inay isku qurxiyaan iyo inay isku goonayaan labadaba maxaad dareentaa marka imika masalan markaad lacag yeelatay meel walba magacaagi ka dhacay bal ii waran xurriyadda maxaad dareentaa xurriyaddii markii hore aad lahayd ee aad iska ahayd ee aad odayga la joogtay mise xurriyad dheeraad horta intaan odayga la joogay waa la soo shaqaysanayay marka horeba markii dambe adigu 7 sano stand back baad galaysaa kolkii aan guursaday ka bacdi 7 sano ka bacdina dib baan isku soo qabtay hadda xurriyadda waxay la tahay adigu dumarku inay u baahan yihiin shaqaystaan hadday tahay ciyaalkooga noloshooda iyo tareer ahaan iyo nafteedaba hay ma u tirtaa wax masalan marka uu gabadhu ay masalan meel yar ka shaqeyso hay'ad yar ee mushahar qaadato iyo marka ay lacag yeelato sidaas oo kale ma dareemaysaa xurriyad in ay madax banaanto lacagtani wax u tirtay oo wax badan oo masalan laga yaabo in markii hore aanay qabsan karin qabsato maxay noogu tari weyday wax cid aan amar ka qaatay ma ka welihin cid lacag dhasiinayso weydiisana male jeebkayga lagu xisaabtamaya hadday ta waalid dhinaca waalid tolnimo qofku u baahan ubadkaaga inta baad ka caawinaysaa kolka tahay qof dumar oo shaqaysta laakiin marka hore lagu haymiya maya waliga leeyma hayna ii waran marka xaas waad leedahay iyo caruurba ma xaas ma lihi laakiin caruur waan leeyahay imisa leedahay ma kala tagteen waanu kala tagnay laba ciyaalan korsadaa aan kula kaftamay marka ma lacagteedii kala kaxaysay maya anoo faaruq aanu kala tagnay marka hore isaga shuraaka kula ahaa maya isagu biilku buu na siin jiray wax shuraaka maanu lahayn ma isleedahay marka xagga siyaasadda iyo masalan xurriyadaas oo kale inaad gasho aad ku dhawaato ma rajaynaysaa maya wax siyaasada kuma tala jiro inaan galo xurriyadeedana alxamdulilah haddaan mar ubadkaygii iyo naftayda baanu ka adagnahay wax xurriyadoo naga maqan ma jirin kolka horena naga maqneen kana ma naga ma iska warhaysan dumarka masalan Soomaalida ee Dubai waa meel xaruna oo dumar doora baa jiro lacag leh ama masalan Hargeysa imka joogtaba qaar u dheelala baa jira qaar baa jira masalan gas station la qaar baa jira masalan lacag leh ma iska warhaysan waanu isnaqaanaa intooda badan dumarka hablo badan oo maalqabeen oo Dubai degan waa run xiriir wanaagsan baanu leenahay
asxaabnimana fara badanna way naga dhaxaysaa jiro ayna dumarku sida ragga ahayn oon shuraakada iyo waxa weyn ayna ka fikirin oo mid walba inteeda yar ku kalsoon tahay haddana walaaltinimadii iyo isxidhiidhintu way naga dhaxaysaa maxaad ka odhanaysaa markaa in dumarku masalan ay lacag yeeshaan oo kale maxaa kugu dhibata inaad ka warartaa markaa wax intii masalan imakoo kale aan kugu celiyo tusaale ahaan markii hore aad qofka caadiga iska haydiye imakoo aad maalqabeen tahay bal ka waran maxaa warware maxaa kugu soo korray noloshaadii ka bedelmay inaan maalqabeenahay ba iskuma haysto horta qof caadi u shaqaysato dee maalin walba nolosheeda la soo baxisle oo fikrad samee oo shaqaysoon isla mooyaane wax aan isdhaho nolosheeda way isbedeshay ma jirto isku mid u baan ahay tan iyo maalintii hore hargeysa halkan waad aragtahay qofka lacagta le markay yimaadaan gaar ahaan qolooyinkan lacagta le maalqabeenka jabuuti oo kale waa la daba yaacaa waa la shaxaadaa bal ka waran adigana qudhaatu bal ka waran rag iyo dumar baa kolley markaad timaado waa lagu soo dhaweyn waa lagu shaxaadayaana dee wax loo wada dhasho horta in wax la isa siiyo marka dadku waa walaaltinimadii baa jirta tolnimadii baa jirta baahidana ceeb ma laha qofba marun buu baahnaa adduunka intaa jir ku dhalatay ma jirto aad iyo aad baad habboon mahadsantay waad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay